Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa mar kale iyo Nashaad Lifestyle oo maantana idiin wado hilibkaasa arkaysaan kalaakalka ah sidaan u hagaajisanay iyo waxyaabayaan ka hagaajisanay step insha Allah nala daawada. Bilis haddana nagu cusub tahay oo barnaamijkeena ku cusub tahay calaamad guduudan ee weli guduud ku tahay calaamad guduudan riix subscribe-ka ah batankana taabo gambaleelka sidoo video walba oo cusub uu kuugu soo dhaco. Walaalahayga sharafta leh maanta waxaa idin wadnaa hilibkaasa arkaysaan sidaa u samaysanay iyo waxyaabaha ka samaysanay nala daawada. Halkan sa arkaysaan waxaa inoo yaala kiilo hilib ah. Hilibkan waa hilib geel steak midka ay dhahaan waaye oo lafaha iyo waxba lahayn hilib geel steak ah. Hilib geelkaasa maanta ka samaysanayna kalaankal ah inamaan caadi ahayn jilicsan macaankiisa ay yaabaysid caafimaad badan saliid badan iyo waxa kuma dareeno insha Allah taala. Marka waxaan rajeynayaa sida ani kalaakalka u samaysto inaa maanta ila daawataan. Haddaad tijaabisaan waa ka heli doontaan yummy masha Allah. Hilibkii aan jarjaris ku bilaabanay isa arkaysaan qiyaastaasaan u jarjaranayaa. Yariis zaid kama dhigaayi waa weynna ma ka dhigaayi. Marka qiyaast size-kaasaan u jarjaranayaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Walaalahayga sharafta leh waa ku mahadsantiin kommentiyaashiina dhiirigelinta ah iyo ducada ah dhammaantiin Ilaahay jazaha idinka siiyo. Masha Allah tabaarakallah dhiirigelintiinaan ku socdaa. Marka waa kaas hilibkii aan jarjaranayaa haddaas arkaysaan saasna u jarjaraya mana yareereynay mana weynay qiyaas dhexe aan ka dhiganayaa. hadduu Ilaahay yiraahdo hilibkaan jarjaranaynaa hilibka markaan jarjarano oon diyaarsano ayaa isku soo laabaneynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka stebiska dambe aan qaadayno iyo waxaas hadduu Ilaahay yiraahdo na itusayaa. Walaalahayga sa arkaysaan weli waan jarjarayaa hilibkii. hadda sa arkaysaan jarjarkii aan kusoo dhammaysanay hilibkii oo dhan aan soo jarjaranay. Halkan waxaan kusoo jarjaray sa arkaysaan xabad weyn oo basal ah asayska dhex u jarjartay iyo 2 xabo oo toon ah. Carfiska hilibka intaasaan ka dhigaynaa toontaas iyo maxaa la dhahayaa iyo basashaas kabsar yarna waan ku darayaa. maxaa la dhahaa iyo xabad kaarot cusbo iyo filfil iyo waxaan ku darayaa xawaash burbuur intaasaan dabka la saarayaa. Walaalahayga qiimaha leh dhuxulna waan ku karinayaa. dhuxusha aad iyo hilibka u kala daadinaysaa 5 daqiiqo ka dhigaysaa zaid u kala daadin. marka hadduu Ilaahay yiraahdo digsigaasaan ku ridanaynaa. digsiga waxa uu yiri adag yahay hilibka hore ka karinayaa sa isleeyahay. marka digsigaana dabka la saaranaynaa basashi toonti maxaa la dhahayaa kabsar yar cusbo filfil iyo xawaash burbuur intaasaan ku karinayaa walaalahay. markuu dhacaan ka dhameysto hilibka aan isku soo noqonaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo sa u shiilayna iyo waxyaabaha ku shiilanaynaa ni tusaya. haddana sa arkaysaan hilibkii oo qoyaankii ka dhamaaday ayaa ni tusayaa. wax yar oo saliidaan ku darsanayaa saliida badan ma jecli. hadduu Ilaahay yiraahdo kadibna waxaasaan bahalkaanaan ku shiilanaynaa. bahalkaan hilibiyada loogu talagalay kalarna wuu u sameynayaa maxaa la dhahayaa macaanna wuu u sameeyaa. xawaashi alaab isku jirto waay marka biyo yar lagu qasaa waa wax powder ah biyo yar lagu qasaaya biyaas kadib hilibku ku gadinaysa arkaysiin oo ku gadgadinaynaa. hilibka markuu casaado sida qalalan oo u shiilmo kadib ayaan soo diyaarsanaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. waa arkaysaan weli waan ku shiileynaa
saliida badan gurigeena lagama jeclo marka hilibka inaan shiilana waa rabaa saliid inaan ku shiilana ma rabi marka sidaas baan kusoo qaleynayaa saa u gadgadinaya hilibka wuu guduudanaya markuu guduuto aan soo diyaarsanaynaa hadduu ilaa yaraahdo macaankiisana lagama sheekeyn karo carfiskiisii iyo wixiisii oo dhan aan gudaha u galay maasha allah uu noqday waxaan laga sheekeyn karin haddana saa arkaysaan waxaan ku darsanaynaa basal iyo barbarooni basashii barbarooniga haddana ku gadgadinaynaa wax qoyaan ah male saa arkaysaan walaalahay soo qalalan ayaan ku shiilaa hilibka jileeciisana lagama sheekeyn karo iyo udgoonka kasoo baxayo maasha allah walaaleyga tijaabiga waa ka heli doontaan haddana saa arkaysaan waa soo diyaarsanay saxankiyaa soo saaranay walaaleyga sharafta leh sidaasaa arkaysaan ayuu kusoo baxay inaba caadiga ahayn quruxdiisa waa arkaysaan macaankiisana wuu kasii daran yahay maasha allah tabaaraka allah waa arkaysaan hadda suu kusoo baxay maasha allah macaankale lagama sheekeyn karo qofkii dhadhamay u baan garan karo sida fooyada u samaysana u jeedeen saliid ma leh maxaa la dhahaa yeeto wax kale kumaanan darsanin maasha allah tabaaraka allah haddana sidaas aan usoo diyaarsanay haddana fuul ayaan usoo diyaarsanaynaa waxyaabihii kale lagu cuni lahaa bariiskii iyo wixii aan soo wada diyaarinaynaa cuntadii oo dhammaystiranna waa tana walaalahayga sharafta leh cuntadii oo dhan bariiskii lagu cuni lahaa salarkii mooskii juuskii maasha allah marqaas yariiska bariiskan ugu talagalay bariis qoyan in la cunaan rabaa hadduu ilaah yiraahdo bariiskan wuxuu ku macay sidiisa markuu qoyan yahay uu macaan yahay maasha allah waa kaasa walaalahayga sharafta leh saas qadadeena diyaar noogu tahay hilibkana saa arkaysana u samaysanay bilis haddaana ugu cusubtahay subscribe noo dheh haddaana la joogi jirtayna like share and comment waa mahadsantihiin ilaahay xasanaad idinka siiyo aad iyo aad u mahadsantihiin waana ku mahadsantihiin